simaha madaxweynaha mamulka puntland ahna madaxweyne kuxigeenka mamulkaasi axmed cilmi cismaan karaash ayaa shirgodomiyey shirka mamulka baahinta puntland oo ay kasoo qayb galeen wasaaradaha qusayso sida wasiirada arrimaha gudaha, tan waxbarashada, caafimaadka, qorsheynta, howlaha guud, haweenka, tan maaliyadda iyo wasaaradda batroolka iyo biyaha ee xukuumadda mamulkaasi puntland. wasaaradaha ka shaqeeya mamulka baahinta puntland ayaa madaxweyne ku-xigeenka mamulkaasi axmed cilmi cismaan karaash warbixin ka siiyey waxyaabihii u qabsoomay sida horumarka wasaaraduhu ay ka gaareen maamulka baahinta puntland iyo shaqooyinkii u qabsoomay iyo guulaha laga gaaray. qabsoomida iyo guulaha isdabajooga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyey shirarka ku dhex marayay wasaaradaha qeybo ka mid ah puntland. madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cilmi cismaan karaash ayaa bogaadiyey shaqada ka socota deegaanada maamulkaasi, waxaana uu kula dardaarmay dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradaha in lasii dardargeliyo shaqada si adeeg dowladnimo loo gaarsiiyo dhammaan shacabka reer puntland. muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa wasaaradaha maamulkaasi waxaa kulamo ay ku yeelanayeen magaalada garowe ee xarunta rasmiga u ah maamulka puntland ee gobolka nugaal. isku soo wadaduuba kulankan maanta dhex maray qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa waxa ay kusoo dhoogmaysa xili dhowaan la filayo in deegaanada maamulkaasi ay ka dhacaan doorashada la filayo in lagu soo dhiso xubno ka tirsan baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo lagu soo dhisi doono magaalooyinka garowe iyo boosaaso oo ka kala tirsan gobolada nugaal iyo bari. ismaaciil abukar bulsho, Ismail TV, Muqdisho.